degmada Gurceel waxay ka tirsan tahay degmooyinka hoos yimaada gobolka Galgaduud waxaana iyadu safka koowaad kaga jirta degmooyinka lagu tilmaamo waxaana ay safka hore kaga jirta degmooyinka ka tirsan gobolka oo lagu tilmaamo in ay yihiin kuwa horumarka ka gaaray dhanka waxbarashada. Gurceel waxa ku yaala iskuulo fara badan oo macaahida iyo kuwa kale oo maadooyin gaar ah lagu barto private-ka loo yaqaan iyo madaarista cilmiga diiniga lagu barto oo ay ku jiraan dugsiyada Qur'aan Kariimka kuwaas oo tiradoodu aad u fara badan yihiin. gudahaan degmada Gurceel waxa ku yaala ilaa iyo 8 iskuul oo ah iskuulada macaahida iyo in ka badan intaasi oo ah iskuulada maadooyinka gaarka lagu barto private-ka loo yaqaano. tira kale intaasi ka badanna oo lagu barto maadooyinka gaarka sida computer-ka iyo caafimaadka luqadda Ingiriiska ayaa yana ku yaala degmada Gurceel waxaana gudahaan ay noqonaysaa horumarka ee dhanka waxbarashada ee degmadu mid sii baahaysa muddooyinkii u dambeeyay. kasoo marka laga soo tago iskuulada macaahida ee ku yaala degmada Gurceel waxa jira in dhawaan jaamacad laga hirgeliyo taasi oo lagu magacaabo Salaam University isla markaana xarun weyn ku leh magaalada Muqdisho. jaamacadda Salaam University oo Gurceel xarun labaad ku yeelata ayaa waxa ay noqotay jaamacaddii ugu horeeyay oo degmada Gurceel laga hirgeliyo si toos ah isla markaana ardada ka baxda dugsiga sare ay ka dhigtaan magaalada Gurceel jaamacad iyagoo aan meel kale u aadin. waxaana jaamacadda ay bixisaa barnaamijyada part-time-ka iyo waliba full-time-ka oo kala ah maalmaha gaarka iyo sidoo kale barnaamijka kale full-time-ka oo ah maalmaha shanta ah oo ay ardaydu si toos ah u dhiganayaan. guud ahaan horumarka waxbarashada ee ka jira degmada Gurceel ayaa noqonaya mid maalmihii ugu dambeeyay sii baahayay iyadoo dadka qaarkii ay u aaneynayaan horumarkaasi degmada ay dhanka waxbarashada ka gaartay in nabadda ka jirta degmada ay tahay mid koowaad ay u horseeday in Gurceel ay hormarto dhanka waxbarashada isla markaana jaamacad yeelato. Abdulaziz